afkaygu amaanta ufududaay afkayguna amaanta gacalooy ufududaay السلام عليكم أصحاب الشرفة الميل والباجوكتان وبدامية بين مشاقة بارقة بنانك الدقي هذه جار مرقاتي التيفي وحاوصو بندقها وحيابها قرصون iyo markaas waxay bulshadeennu ay daneynayaan sida la socotaan baraha bulshada maanta iyo shalay iyo waxa aad loo hadalay iyo wixii ka dambeeyaba waxa aad loo hadalay in wiil yar oo dadka ay danta iyo duruufta ay ciishay ay meel cidla ay dhigtay in mugdigii laga soo saaray oo iftiin yar helay fursadaasna uu sameeyay nin lagu magacaabo حسن طوب nin aan garanayo shakhsi ahaan oo aan isla soo shaqeynay ninkan ka hadlayna nin kale maahan waa Aweys Cali Baafow Aweys Cali Baafow shalay meeshuu joogay iyo meeshuu yimaaday iyo meeshuu hadda ku laabtay iyo sababta keentay in uu Aweys laabto ayaa raba inaan wax yar in kaga sheego horta qaralaasiyo Xasan Toob wuu dadaalay laakiin dadaalkiisii waxa ka tambatay dantiisa ayaa ka tambadatay hadda wadanka aan joogo magaaladiisa dadka badanaa Soomaalida waxay ku leeyihiin YouTube-leedu waa dad xun waa kan waa saan xumaanta la sheegay Xasan Toob oo ku jira laakiin dadka qaar way ka soo reebayaan Xasan Toob waxay leeyihiin Xasan Toob wallahi wuxuu sameeyay wax fiican Aweys Cali Baafow meesha uu ka soo qaaday halkan oo keenay saan waa ay ku leeyihiin laakiin waxaan rabaa inaan ka hadalno hal mid dib bal u fiiriya inta barnaamij oo laga sameeyay Aweys Cali Baafow kaligiis laga sameeyay marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno marka Aweys Cali Baafow miyuu ahaa ruux sumcadiisa la badbaadiyay mase Aweys Cali Baafow wuxuu ahaa mashruuc haddaba waxaan rabaa inaan mataqaana idin kala qaado laba idin kala qaado meesha Aweys Cali Baafow laga soo qaaday ama laga soo waday waxa xilliga ku sugnaa dhalinyaro aad u yar oo 7 jir 8 jir 5 jir ilaa 12 jir iyo wixii ka waaweyn Aweys Cali Baafow hadda waa nin garaadkiisa iyo aqligiisa wuu koraysaa laakiin danta iyo duruufta ayaa ciisho halkaas geysay laakiin waxa jirtay caruur aad u yar aad oo macquul hooyooyinkood iyo aabayaashood inay kala tageen macquul tahay in iyaga iyo waalidkood ay ku kala dhumeen duruufada dalka ka jirta kuwaas ayaa horta mudnaanta koowaad lahaa hadiiba qof la badbaadinayo sababtoo waxa ayaan wixii biri mustaqbalka wadanka bedeli lahaa laakiin Xasan Toob waxa uu markiisa koowaad shaashadaha ka soo daawaday ama mobilada ka soo daawaday Aweys Cali Baafow oo ay dadka Soomaaliyeed ka duuba jireen Snapchat iyo wixii la mid ah iyagoo dhahay qof hebel caay $1 lagu siinaa Aweys waxa uu noqday isagoo noloshiisa ku jiro qof caan ah oo shaashadaha soo koray oo qof walba ay daneynaysa hadalkiisa Aweys xilliga uu noloshaas ku jiray shaqadiisa kalena oo watay Xasan Toob waa uu fakiray waa xilligaas hoos u dhac weyn laga dareemayay channelkiisa durdur media dib u fiiriya hadii aad rabtiin halka uu joogay iyo marka uu Aweys Cali Baafow uu ku soo kordhay teamka ay noqdeen halka uu marayay bal adinka dib u fiiriya Aweys Cali Baafow hortiis waxay yeesteen Fartuun Balbalaar waxay fahamtay qorshaha iyo mashruuca meesha ka socda waxay aragtay in iyada magaceeda ama iyada mataqaana hadalkeeda dhaqaale lagu cunayo Fartuun waxay sameysay janal kale sameysatay waa ay ka tagtay sifa kasto ay ku tagto ani waxba kama sheegayo waa qof danteeda garatay ayaan u arkaa waa tagtay laakiin Aweys Cali Baafow dib u fiiriya Aweys Cali Baafow kaliya waxa laga sameeyay ku dhawaad ugu yaraan 30 muuqaalood laga sameeyay waxa kamid ah Aweys Cali Baafow hooyadiis la kulmay ayaa kamid ah waa mashruuc kale ay hooyadiis la kulmay oo intaas waxa lagu raadinayay waa views Xasan Toob ayaa sameeyay in hooyadiis oo la kulmo kan la sameeyo waa la socday mid
awees waa la badbaadiyey noloshii waa la bedelay xasanow maxaa samaysay kow maxaa samaysay xasan ma samaysay dib u dejin ninkan ma u samaysay ma u samaysay qorshe nololeed kale ma u samaysay sababtoo ah dartiis ayaad waxaa ku heshay dhaqaalo fara badan oo weliba dad Soomaaliyeed oo muxsiniina oo mustaqbalkiisa ka fikiraya ayaa dhaqaalo kugu sii daray maxaa samaysay nothing to do waxba ma adan sameyn waxba ma adan soo bandhigin waxba noloshiisii kama bedelin waxaa la yidhaha Aweys Cali Baafo waxaa loo sameeyey ilka ayaa loo geliyaa lagu yidhi yaa u geliyey anigu Soomaaliya marka ka soo tagay saxafi yahay saxaafadda Soomaaliya way garanaysaa shirkadaha iidada loo sameeyo ama xayisiinta loo sameeyo si xayisiintoodu ay ma taqaana dadku ugu soo bandhigaan waxay u sameeyaan wariyaasha qaarkood waxyaabo shaqadii markaas ka mid ah xasan iyo tiimkiisa waxay Aweys Cali Baafo xayisiinta ay shirkadaas ama dhakhtarkaas ilkaha geli ugu sameeyeen ayaa sida ilka loogu soo sameeyay waa sax sidoo kale waxaa la soo bandhigay Aweys Cali Baafo oo ma taqaana masaajid aaday Aweys Cali Baafo masaajid aaday taasu ma ahan wax la yaab ma noqon karto waa muslim Aweys Cali Baafo Aweys Cali Baafo marka meesha laga soo qaaday nin ma taqaana diinta ka baxay meehan wuxuu qof duruufaysan oo duruuftiisii ma taqaana ay duruuftu ay meeshas ay dhigtay ayuu ahaa ma garatay waxaa la yiri kala ka sii daran wuxuu sameeyay door iyo intaas oo boqolood oo video ayaa Aweys Cali Baafo laga sameeyay hadaba maxaa dhacay intaas kadib maxaa dhacay Aweys Cali Baafo waa qof nafla waa qof bili aadana waa nin weyn oo dhali kara Xasan Toob maahan ma taqaana Xasan Toob dakhligaas ku soo galaya maahan inaad kaga garaadar sareyso Aweys wuxuu arkay in uu yahay la haysta ma taqaana Xastoob uu yahay sababta ku cadeynaysa waxay tahay haddii uusan la haysto u hayn Aweys waxaa loo sameyn lahaa konto gooniya lambar gooniya waxuuna samaysan lahaa nolol ka wanaagsan noloshii uu hore ku soo jiray Aweys looma soo gudbin ama ma taqaana loogama soo qaadin inuu inta ka soo tago koolada oo xamaal u noqdo durdur media ma sababtu sidaas ma ahayn Aweys waxa mashruucaas oo la rabay in lagu kala kiciyo durdur media kadib marka ay la kulantay hoos u dhacaad weyn hoos u dhacaasna waxa sabab ku ahaa qofka kaliya xilligaas ay ku xisaabtamayeen oo ahayd farto balbalaar oo aad ogtiin dhibaatada iyo saameynta ay kala kulantay mid kale oo idin sheegay waxay tahay Aweys Xasan Toob inuusan ahayn nin ka fikiraya dan kale ka fikiraya waa ninkii sameeyay hal abuur ah inuu gabar Soomaaliyeed surwaal ka yar u geliyo si uu views u helo waa ninkaad aragteen oo isaga inta shaashada yimid ku faanayay in ma taqaana nin caan noqo way si uu caan bixiyo dameer shami ku yiri waa ninkii yiri nin ama qof ruux dhalinyaro oo sumcad kale mustaqbalkiisa iyo waxa uu hadda rajeynayo inuu yiraahdo musqusheeda ku dhaxays waa musqusheeda oo haddana commentiyada iyo qaar ay ku faanayo inuu yahay meesha lagu haysto musqushiisa ay tahay waxa intaas kaaga sii daran oo aad ka dareemaysaa Xasan Toob inuusan ma taqaana aysan ahayn mashruuciisu mashruuc aad looga baraandigay waxa jirto wax la dhahay Soomaalidu waxay dhahan budaqaba iyo biiqaba waa isku baahan yahay xasan waad keentay Aweys wuxuu ku shiday barnaamijkaagii wuxuu ku sameeyay YouTube-kii ayuu views iyo dad cusub kugu xiray laakiin waa walaalka waa xawaayo qof walaalkaaya oo u baahan nolosha adiga aad u baahan tahay waxaan maqli jiray dab ninkii ku gubtaa dambaskiisa ka cabsada Xasan Toob walaalkeeyo duruuf iyo nolol waxay tahay waad ogtahay Xasan Toob adiga saad Mareykan ugu imaatay YouTube ma hada bilaabin duruufta xamar iyo magaalada ka jirto waad garan kartaa Xasan Toob haddii duruufu jirto iyo haddii nolol adag tahay waa soo aragtay marka waxay ahayd inaad ka gubato oo aad ma taqaana walaalkaaga aad wajigaas ka badasho oo waji kale u sameeyso intaas way kugu soo dhici weysay oo waxa mar walba ku soo sawirmaday taada iyo sidii ma taqaana aad ku sameey lahayd shacbiyad cusub aad ku heli lahayd صح ويكون هرقشي
dhaqaale intaas ka badan ayaa heshay bal fiiri waxa ummad mataqaanaa xataa dhaqaale u soo diray intuba ma aadan siinin oo keliya inaad u labisto inaad dhar u soo geliso aad ku horkeento bulshada si views fiican loo helo ha waa samaysay laakiin nolol intaas ka duwan ma aadan samayn kadib maxaa dhacay in ugu dambeyntii dhibkii iyo duruuftii iyo xaaladii sidii ugu jiray waxaa ugu dambeyntii dhacday in Aweys Cali Baafow oo ah nin raga oo qof damiir ah leh oo ah qof mataqaanaa doonaya isbedel in noloshii uu arkay inay tahay nolol ganacsi inuu u yahay la hayste inuu u yahay mataqaanaa suuq u yahay nin isaga ka yar shalay hooyadiisu ka tagay aabihiisu ka tagay caruur noolaha ma garanayo noloshiisu wuxuu uga tagay waxay duruuf soo asibtay laakiin maanta ma uusan u soo bixin noloshiisu ma bedelin inuu la haysto qof u noqdo xasto mid ka qaldana waxay tahay qof hooyadii ka tagay shalay oo darbigaas jiiftay mislaada adiga sanado ayuu adiga la haysto ku noqonaya su'aashu waa may waxay ugu dambeyntii sababtay arintii in Aweys Cali Baafow in bilooyin ka hor meesha laga soo qaaday inuu hadda dib ugu laabto isagoo oo niyad jabsan marka waxaan rabnaa inaan laba ka hadalno marka maxay ku kala duunaa kartaa darbijiifkii uu shalaha Aweys Cali Baafow iyo maanta uu yahay darbijiif Aweys Cali Baafow shalay markuu darbijiif ahaa wuxuu aaminsanaa duruufta iyo waqtiga inay ka helisay maalin uun waqtigu uu garab sii doono maalin uun inuu heli doono walaal ama walaalad ama gabar ama wiil ama hooyo ama abti Soomaaliyeed ama qof dhiig Soomaaliyeed leh kaas oo mataqaana duruufta iyo nolosha xun oo la dala dhacayo ka garab siiso laakiin sida ayuu aamin ku niyad samaa haba ku jiro xabagtiisa wixiisu iska dhuuqayo laakiin tan maanta waxay kaga duwan tahay wuxuu aaminsan yahay inuu haysato duruuf nololeed oo aad u xun wuxuu aaminsan yahay inuusan noloshan ka gudbi karin inta ay haysato duruuftan laakiin ma aaminsana hadeertaan inuu leeyahay walaal Soomaaliyeed oo ka damqa kara dhibkana u haysto waxaana taa sabab ah Xasan Toob iyo wixii la mid ah oo nolosha hadda uu ku jira gaarsiiyay sababtoo ah wuxuu soo arkay in qof kasta ama wuxuu hadda aaminsan yahay in qof kasta oo mustaqbalka badbaadi kara ay u badbaadinayso dan ay isaga ay ka leedahay aysan u badbaadinaynin dareen damqashanimo iyo dareen walaaltinimo iyo dareen Soomaalinimo inaysan u badbaadinayn ayuu aaminsan yahay Aweys Cali Baafow marka waxaan rabaa inaan la hadlo Xasan Toob iyo dadka iyaga la midka asaga la midka social media waa lagu wada jiraa YouTube waa lagu wada jiraa waxna waxay tahay kaftan iyo qaraaxo iyo mataqaana iyo sheeko waxna waa badbaadada ama wax ku saabsan nafta qofka Soomaaliyeed waxa kamid ah oo aad ugu xun oo social media ugu badan oo xataa groupka Xasan Toob ama durdur media aad ku aragteen waxa kamid ah dhacdooyinka ka dhaca waxa kamid ah dhacdooyin aad u foolxum oo qofka bini'aadanka mataqaana naftiisa ama mustaqbalkiisa dhaawac gali kara bal ilaahan kugu dhaariyay cunuga ay dhashay fartuun balbalaar marka uu weynaado hadii uu arko hooyadiis oo surweel ka yar ku heesayso cunugaas muxuu sameyn karaa maxay niyadiisa noqonaysaa muxuu hooyadiis ka aaminaa wad kala kartaa Soomaa yaa sababa marka Xasan Toob sabab waxa jirto wiil hadda bariyahan oo waxa jirta fanaan yar oo bariyahan uu soo siro dameer ku hees oo yiri fanaankaas wuxuu leeyahay mustaqbal wuu cod macaan yahay waan dhageystay heesiisa aad bay cod macaan yahay marka uu helo abwaan Soomaaliyeed oo miro qurxoon leh marka uu helo muushiisig fiican marka uu helo markuu helo dad wanaagsan oo hab maamuus oo u sameeya qaab protocol wanaagsan oo ku heesi kara u sameeya hadii uu lacala ilaahay bul u siiyo oo fanaan weyn noqdo waxa arqalad ku noqon doonto CV-giisa oo u sameeyay Xasan Toob marka la soo helo asoo musqul ku heesay isagoo dameer shuminay isagoo negas ku heesay oo cooradiisa ay banaanka taal marka la soo helo
khalaas wuu dhimanaa wax kasta uu yahay halkaas ayay ku ekaanaysaa sababtoo ah Soomaalidu waxay dhahan magac iyo musiibo mar ayay baxaan marka waxaan dhihi lahaa Xasan Toob saaxiibkay ayaa tahay aad ayaan ku aqaanaa waxaan kuga ogaartay nin aad iyo aad u dadaal fiican inaad tahay laakiin midda iyo ka tan badin halkaan iyo ka tan badin halkaan hadii ka tan badis gud aa galay dadna gud aa galinaysaa doonta ama wax mataqaana in qof madaxiisa wax lagu cuno dad badan ayaa mataqaana mustaqbalkooda wax laabay adiga yeesan ku sirin shilmaadka yar yeesan ku sirin ogow adiga laftirkaaga wax mustaqbala ama wax mataqaana xushmada oo maanta ku yaal ma jirto adduunka qofka ninka raga waa inuu ka dagaalama magac waa inuu ka dagaalama wax arti samay laakiin qof walaalkaaya qalbigiisa marnaba dhaawac gaarsiin waxaan dhihi lahaa saaxiibkay Aways Cali Baafo waxa jirto xigmad ahayd ku qabadii qadar rabbi waa la qaataa walaalka adu Xasan Toob noqday ogow walaalahaayo dhan Xasan Toob oo kala maahan ogow garabkaagi alla ka sikow garabkaagi haduu noqdo Xasan Toob ogow garabkaas oo kaliya maadaleed waxaan ku dhihi lahaa waxaad leedahay walaal badan waxaad leedahay dad badan oo ku damqanaya waxaad leedahay ama aad haysataa mustaqbal aad u wanaagsan waxaad haysataa fursad aad haddana mar kale noloshaada ku bedeli karto adigoona cidna garab uga baahnayn adigoo Xasan Toob iyo khayrkiisa waxba garab uga baahnayn ilaahay tala saaro xoogaaga iyo maskaxdaada ka shaqeey waad ka gudbaysaa marxaladda hadda taagan waxaadna ogaataa xigmad Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxayd qofka aanan garanaynin meeshuu ka yimid shalay ma garto halka uu u socdo fiiri noloshan hadda aad ku jirtid ha ku noqoto canaan aad ku istaagto oo aad ku socoto haddaad noloshaas fiiriso kuna dadaasho sidaad uga carar lahayd Xasan Toob iyo wax lamida kaba qaad adiga ay ku noqonayaan marnaba u noqomaysid kaba qaad Xasan Toob fursadda iyo waqtiga ayaa mataqaana saaciday adigana waa uu ku saacidaya oo mataqaana ilaahay adoon kuma adoominaya adoon kale ilaahay wuxuu ku aniga bari bariyadaadana waa ajiibaya 20 jir waa tahay bariyadaada ilaahay wuu ajiibaya aniga qaasatan aniga Cabdiraxmaan ahaan asee barqaati TV ahaan waxaan kula garab istaagaya had iyo jeer dhiirigelin inaad kacdo aad istaagto aad socoto oo Xasan Toob iyo wixii lamid aad ka kaaftanto war waa gabar Soomaaliyeed waa gabar way ka garaad yar tahay mataqaana waa boqolo iyo kontolo waa kala tiin maxay fahamtay dibka wax Xasan ku haayo maxay fahamtay inuu iyada ku shaqeysanayo hadda inay ka magac weyn tahay ka fursad fiican tahay maahane kama fursad yaro adigoo nin raga maxaa ku diiday war wax kale hadaad weyso ma weynaysid walaalku caawiyo had YouTube-ka ku faanaya fura kartaa codkar baa tahay saaxiib baad leedahay garab ayaad leedahay waxaad sameey kartaa oo kaliya xataa waayo waxa soo aragta noloshii darbijiifka hadii aad YouTube-ka kaliya aad ka sameeyso xataa barnaamij wacyi gelina barnaamij tooshka lagu ifinayo sidii loo caawin lahaa meesha aad ka soo tagto dadka joog intaas ayaa bul ku dhahaysaba dadku way ka daalan xumaanta iyo dadka qabiilka iyo dadka wax soo naceen iyo gabadha qaawin waa la nacay inta sidaa sameeyso Xasan Toob iyo khayrkiis waa ka kormaraysaa asxaabteeda sharafta leh meel walba joogtaan iyo si walba ii daawanaysaan waan kaga bahad celinaya daawashadiina waxaan idinka codsanayaa mar walba inaad taageertaan wanaaga mar walbaba wax aad u sacabtumaysaan inaad ka fiirisaan waxaan intee u socdaa marka barnaamijkeeni ahaa Aways Cali Baafo qof naftiisa la badbaadiyay ayuu ahaa mase mashruuc ayuu ahaa halka ayaan ku soo gabagabeynayna halka kala socoteen waa Marqaati TV waa xayna hadlayana waa been masheega barqa banaanka degay bidaamiye been masheega barqa banaanka degay hadii jeerna waa in la socodsiin doona si falalkaas iyo wixii la mid ah dadka ku kacaya aniga Cabdiraxmaan ahaana absolute marnaba igama suurtoobi doonto inaan qof walaalkay Soomaaliyeed inaan qalbigiisa dhaawaco taa bedelkeed waxaan diyaar u ahay intaan qalbi walaalkay aan dhaawaco ilaa inuu tiida asaga dhaawaco waa idin salaamaya